ولا ليال بيشان دور إيه صدّن سومالي لين شرتي أبالكودي ميهن حقودي ميهن نوشي وحين نقدن سفر بانكومري إلى سير إلى ميل والبايدقان ودول لغا غوري اون بيو iyo baad iyo nolol iyo wado iyo midna aan ka jirin Soomaaliland magaca mooyaan waxba ka wahan dad badan oo meelaha ka hadlayaan maqlay ciise Soomaaliland miya ciise maxaan dhahnaa Soomaaliland wax ku leeyahay nasiib darro abaalkoodii wuxuu noqday boqolaalidii wiil ay kaga dhimanayeen in kuwa ay dhabarka ku sideen abaalkoodii wuxuu noqday inay tirada waxba kuma la Soomaaliland barqoloodii garxajisay meel walba maraysa kursiga waa kursiga gacanteena maanta haduu ku jiro madax dhaqameed ka kac aruuriyo madax dhaqameedada kale arinta u fariista arinta samaroon waxaan ku talin lahaa xeer ciise weeye buug ciise ma aha meesha waxa lagu bandhigay madaxweyne waxaan ka codsanayaa dawladnimadu waxay leedahay wadooyin wax lagu furfuro waxay leedahay awoodo kale inaanay dhicin waan soo baxnay iyo ciidan baan hor dhignay oo xabadi ka bilaabato halka inaanay kugu dhicin maamulka taariikhda noocaas aanay ka dhicin xukuumaddu waxay tiri xeerka ciise laguma qaban karo sayla maantana waxa shiray beesha ciise iyo koox hogaaminayaan ogaaskii gandihii waxbaradkii cid walba aanu kala maqnay go'aankoodu wuxuu ahaa kow inaan meeshan aanay ahayn bandhig buug meeshan buug shakhsi wuxuu doono ku qoro hadduu Soomaaliland caayiya hadduu Soomaaliland amaanayaba meeshan beeshu waxay wadataa maaha bandhig buug ay qof leeyahay beeshu waxay wadataa hay'adahan caalamka ee UNESCO iyo kuwa lamidii waxay raadiyaan ummadihii hore raadad ay ka tageen oo bini'aadamkuna wada leeyahay oo su'aasha imaanaysa oranayso yaa dhisay ahraamtaan yaa dhisay waxba diintoodii iyo waxoodii iyo maanta dawladdeedu ka tirsan yihiin midna iyagu ma eegaan waxay eegaan waxaan ay qabteen ma yihiin wax ku ah waqtigaas mucjisooyinka bini'aadamka ay khasab ku tahay in la qiimeeyo hay'addu waxay garatay in Yurub Asia iyo meelo badan oo mugdi ku jira maamulka dawlad dhisid in ummadda Soomaaliyeed beel kamid ah beelweynta ciise ay aliftay qaab maamul qaab nabadgelyo qaab xiriir ee dal iyo dad iyo dhis dawladnimo xeerka ciise kama ay eegayaan iyo ku xeer ciise ee waxay ka eegayaan adoomada ilaahay intaasoo qarni isbedelayay wax qiimo leh ku soo kordhiyay jiritaankii bini'aadamka waxay qireen inuu xeerkan yahay hanti ummadeed hanti bini'aadam hanti ummadda Soomaaliyeed wax af Soomaali ku hadlan ka hadlaynaay annagu arrin shaqo kuma leh xeerkan wax siyaasad wala ciidii la ictiraafayo iyo ciidii goosanaysa iyo ciidii jirta iyo ciidii midna markay ka eegayaan waxay ka eegayaan waxaan qaabka la iskugu xirxiray ee bini'aadamku iskugu xirxiray ma yihiin wax bini'aadamka anfacaya hadda waqtiga ogaada dunida inteeda badan maamul dawladeed kama talinayn ee waxa ka talinayay jahliga iyo xoogga iyo cowboyga iyo waxa ka talinay haddii marka xeerkii caalamka heerka uu gaaray hanti ciise ma ee waxa magacaan oo dhan kor u qaaday waxa weeye waa hanti Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed afka Soomaalida ku hadasha iyo kii abuureen qabba galay inay xeerkan la wadaagaan in maaragtay la ay farxaan awooyaashood inay wax fiican qabteen halka markan xeerka uga tago waxa jira barigii ay dalka la xoreeyay ee beeshii ugu weyneed ee dalkan xoreysay ay madaxa isla gashay oo la kala bixi waayeen oo dhigoodii iyo guryahoodii xalaalsadeen oo meel walba iska saareen oo ay baabi'iyeen waxay 10 sano u hoogayeen iyo u baaba'ayeen oo ay af iyo luqad ay isku gartaan isku dhawaadaan iska waayeen waxa xambaartay beesha Samaroon waxay la tageen Boorame waxay yagleeleen qarankii Soomaaliland dagaalkii sokeeye iyo wixii oo dhanba waxay ku ururiyeen inay qarankan Soomaaliland ay cagaa u taagaan way ku guuleysteen ilaahay wuu la qabtay sida awgeed taariikhda Soomaaliland baal dahaba hawlgal adag ay u mareen iyo jihaad badan ay u mareen
ayay ku dhaliyeen qaranka maanta jira ee Soomaaliland ee dad badan ku faanayaan leeyihiin ana saan shakhsi kasta ee Soomaaliland maanta waxay ku leeyihiin abaalan weligeed go'ay waxay ku leeyihiin in walaaltinimadii ay muujiyeen maalinta iyo halgankii iyo dhibtii burburi lahayd baabi'ina ay ku badbaadiyeen inaan garanno kaalintii ay cayaareen maalintaas ay naga mudan yihiinna maxaa ixtiraam ah maxaa tabashadooda xataa qiimo ka badan dadka kale la siiyo waayo waa dadkaas qarankan maanta inta lagu hawtaan haddaan halkaa uga tago maalin waxaa jirtay Hargeysa la duqeeyey Burco la duqeeyey meel walba la baabi'iyey shacabigii halkan ku noolaa yaacay dawladda lala daba socday naarta ifka ku soo baxday la korkeenay bacadka ay tageen waxay go'aansadeen inay wax iska ceshaan oo ay halgamaan oo ay duruuftan ka baxaan ogaada ummadda Soomaaliyeed oo dhan maalintaas hal reer oo kaliya ayaa halgankii la galay hal reer oo qura ayaa halgankii la galay ayaa ku baaba'ay ayaa waxa ugu qaalisan ku bixiyay dhiigiisii iyo xoolihiisii iyo naftiisii beesha Ciise qaar badan ba waxay aaminsan yihiin in SNM ay saaqahay SNM cidii aan taariikh ka hayn SNM laba beelood baa wada dhistay beesha Isaaq iyo beesha Ciise ayaa wada lahaa nus in ku dhow golaha dhexe SNM oo anigu aan kamid ahaa beesha Ciise in ku dhow nus galbeedka oo uu qaaligii ninkii lagu ahaa Allahu naxariistay jirif uu hogaaminayay ee dagaalada ugu ba'an ka baxaynay xagee bay ka heli jireen saadka xagee bay ka heli jireen shidaalka xagee bay ka heli jireen waxay u baahan yihiin dagaalku waa maalin qofku adkaado iyo maalin laga adkaado maalintii laga adkaado dib u guratid xagee baad gali jirtay yaa ka reebi jiray control walba yaa albaabka ku furi jiray oo dhabarka ku geyn jiray beesha Ciise dhiig wax ka qaalisan oo loo huro xorriyad ma jiro dhiigoodii iyo inamadoodii iyo naftoodii iyo dawladnimadoodii hala ku galiyay waxaan goobjoog u ahaa safaran soo raacay madaxweynihii Allahu naxariistay Siyaad Barre oo dhakhtarkiisa ahaa oo Djibouti nimid wax cabashadiisa ugu weyn ahayd halgankan SNM waxa laga wada Djibouti ba ay fadhiyaan ganacsatadii beesha Isaaq Djibouti ayaa fadhiyaan maartay dawladii u horeeyay xataa markii dalka la xoreeyay Djibouti bay ka soo duulay wax walba Djibouti iyadoo dawladda Itoobiya ay abaalkeeda la gaarka walaalayaal beeshan dhowr iyo 30 Soomaaliland jirtay abaalkoodii ma helin xaqoodii ma helin noloshii waxay noqdeen safar baan ku maray ilaa seel ilaa meel walba ay degaan waa dhul laga guuray oo biyo iyo baad iyo nolol iyo wado iyo midna aan ka jirin Soomaaliland magaca mooyaan waxba ka ahan dad badan oo meelaha ka hadlayaan maqlay ciise Soomaaliland miya ciise maxaan dhahnaa Soomaaliland wax ku leeyahay nasiib darro abaalkoodii wuxuu noqday boqolaalidii wiil ay kaga dhimanayay in kuwagi ay dhabarka ku sideen abaalkoodii wuxuu noqday inay tiraahdo waxba kuma laha Soomaaliland waxaan ka wadaa waa labadeeni gacmood Samaroon iyo Ciise waa dadkii abaalada noocaas noo galay labaduba waa dadkii Soomaaliland midna inuu xorowdo u huray nafti iyo nool midna inaysan burburin ee maaragtay ay jirto u huray maanta ma aha kuwii isku fiirsan lahaa kuwii dareemada maaragtay social media iyo balada wax horinaysa shaadiinta isku diraysa kuwii ka aamusi lahaa maaha madax dhaqameedyadeen salaadiinteen gaar ahaan beesha Sacad Muuse afkaan ku dhufanaya maadaama darafka beesha dhexe ee galbeed ay xigeen labada beelood ba abaal xad dhaaf bay ku leeyihiin markii boorama la isku geynayay nin awalabay calanka saareen madaxweyne u saareen iyagoo kuwii xoreeyay kuwii tirsanaya waxyaalay tirsanaya waxbeenay Suldaan Ismaaciil iyo odayaasha kale qaaliga ah ma aha maanta inaa mustaan ma aha maanta inaa fariisitaan wax kasta oo Samaroon dhibaya way inay dhibaan wax kasta oo laakiin waa inaad arrinta cagaha u dhigtaan oo eegtaan shayaadiinta dhexda ku jirta ee doonay Suldaan Ismaaciil iyo odayaasha kale waxaan leeyahay miyaanu jirif ahayn reegibili miyaanay mujaahidiinta la gashay dagaalku gabile iyagoo dhaawaca wada ool miyaanay idin kaga sheekeen waxa Ciise idin galay oo halganka idin galay maanta to kaalita koowaad qaata dhaqaajiya
madax dhaqameedka Soomaaliland hadday yihiin garxajis iyo Arab iyo waxay doonaan ha ahaadeen habar jecel dhaqaajiya maantayto arrinta dawladda gacan ku siiya sharkeeda in la qawajiyo in sharkeeda aan la isku fiirsan in kuwa xun ee doonaya Soomaaliland ay burburto aan maartay aan ka helin meesha qanaanshihiin iyo kaalintii aw beesha habar jecel ee markii xaaladdu adkaataba salaadiinteedu soo dhaqaaqi jireen maxay la aamusan miyaanay arrintaani keeni karin inay faraha ka baxdo in shaydan ka faa'iideysto in Soomaaliland cadawga ay leedahay waxaan dabada ka riixaya ay maartay doonayaan inay ku burburto ka kaca fadhi warqoladayna garxajisay meel walba maraysa kursiga waa kursiga gacanteena maanta haduu ku jiro madax dhaqameed ay ka kaca aruuriya madax dhaqameedyada kale arrinta u fariista arrinta samaroon waxaan ku talin lahaa xeer ciise weeye buug ciise ma aha meesha waxa lagu bandhigayo xeer ciise kuma jirto wax Soomaali la yiraahdo iyo wax Soomaali la yiraahdo iyo ma bay jirin ba waxaan dulidani ma ay jirin waqtigii madoobaaba la sameeyay walaalayaal qabka yaana walaalayn kala masuul hadday wax dhiseen Soomaalida kale dhisan weydo maanta inta reer walba reerihiina nin walba idin kamid 10 suldaan buu leeyahay 10 caaqil buu leeyahay 10 saan buu leeyahay warmiyadu arkeen nabadgelyada dhexdooda taal warmiyadu arkeen maxaa xasiloonida dhexdooda taal warmiyadu arkeen hiilka dhexdooda yaal beesha samaroon ma jiro qof idin ka xiga ciise Soomaali idinku masdalay idinku masku degaana idinku maxay yaan shayaadiin leedin soo diray dhexdiina ka abuuri waxaan jiro xeer ciise waa inaad boorama ku qabataan marka xeer laga soo kaba magciisi boorama waa inaad ku qabataan oo dareensiisaan walaalihiin inay geeyaan in la amaano waa amaan kaliya wax maanta idinkaga baahan in la qaataan xeer dhulna lagu qabsan maayo salaad sultaan maxamed ugaaski ka weynaaba lagu calama saaray ilaa 19 ugaas baa lagu calama saaray qaar baa yiraahdaa Soomaaliya ku tal wartaas waa buuggii baan meel laga hadlamayo Soomaaliya kuma taal xeer ciise meel laga gama taal waxa taa ka daran shirkoodii maanta beelweynta ciise ee aan ciid u maqnayn waxay ku ictiraafeen qaranka Soomaaliya waxay leeyahay beesha ciise waxay degtaa Itoobiya Djibouti iyo Soomaaliya marka qarannimadii Soomaaliland ayay ku hadlayaan waxay ictiraafsan yihiin maamulka iyo madaxweynaha ka dhisan waayo madaxweynihiina waxay ka codsadeen inuu nabadgelyada anagu qorayna masidano waxaan midina masidane madaxweynaha nabadgelyada meesha yaa war wax saacada ku siman durbaan saacada ku tuman iyo faan saacada ku tuman waxaan soo jeedin lahaa beesha samaroon dad ugu xigtaa inaanay xambaaran godob inaanay xambaaran maartay maxaan dhahaa walaalkood oo dhalay on cid ku dhaxaynaysa jirin inaanay dhexdooda dad shar ka shaqeynaya aanay dhexdooda noqon oran kan balwada iyo kan balwada ha dhageysanina inamada yaryar social media ka hadlaya ha dhageysanina kuwa wax magaladka ay waxaynaya aqli baa leedin ku tumay cilmi baa leedin ku tumay wixii aad Soomaaliland ku badbaadiseen baa leedin ku tumaya walaalayaal maanta ta gacanta qabta dhaqanka Soomaaliland oo dhan idinku gacanta qabta idinku hogaamiya idinku seerac taga saacada durbaanka u tumo walaalaheen iyo ko faraxsanna meeshaan ka dirno madaxweyne waxaan ka codsanayaa dawladnimadu waxay leedahay wadooyin wax lagu furfuro waxay leedahay awoodo kale inaanay dhicin waan soo baxnay iyo ciidan baan hor dhignay oo xabadi ka bilaabato halka inaanay kugu dhicin maamulka taariikhda noocaas aanay ka dhicin qaar baa ku leh maxaan dhahaa saan maxamed yeeli kara war nin walba wax yeeli kara dinaciina war waxaan leenahay dalkeena maantayto madax dhaqameed oo ka kaca salaadiintii waaweynaydan garanayo ee badbaadiyo marar badan dalkan waa ogtiin kaalintii guurtida ka baxday meesha markii odayaasha qaaliga ay meesha ka baxeen idinka guurtidii ka kaca way ga dardaaran wassalaamu calaykum